dalxiisiyo tamasheedonayo dalkeenaan la heli karin dunida meelu dhigantee soo daawo u arag. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinkaga imanayaa barnaamijku magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug annagoo markaa kusoo qaadan doona dalxiisaan ku tagnay deegaanka Roox ee duleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. deegaanka Roox wuxuu ka mid yahay deegaanada markaa kheyraadka dabiiciga ah sida beeraha iyo xarumo kale oo markaas loo dalxiis tago. haddaba dadka magaalada Gaalkacyo ku nool ayaa markaas toddobaadkii u soo dalxiis taga deegaanka Roox ee duleedka magaalada Gaalkacyo. hadumaan ku laban yahay dadku malama yeeshee midigtuba miciin male hadday bidixdu maqan tahay waa laba mataano hawsha maamulaaye midigtuba miciin male hadday bidixdu maqan tahay waa laba mataano hawsha maamulaaye muruqiina maalo dhulka mira ku beero muruqiina maalo dhulka mira ku beero macdanta dahabka muujiya wanaaga muujiya wanaaga. deegaanka Roox wuxuu magaalada Gaalkacyo u jiraa 150 kiiloomitir waxaana uu ka xigaa magaalada Gaalkacyo dhanka waqooyi. waxaa u dalxiis taga xilli roobaadka dhalinyaro ka kala yimid gobolada Puntland si ay ugu soo qaataan waqti farxadeed. Roox ayaa ah deegaan caan ku ah dhanka beeraha waxaana ka baxa dalagga noocyadiisa kala duwan sida digirta, qaraha, sisinta, galeyda iyo masagada. sidoo kale waxaa jira dalagyo kala duwan oo xilliga jiilaalka la waraabiyo oo ay kamid yihiin cambaha, liinta iyo saytuunka. sidoo kale waxaa ka baxa qudaarta noocyadeeda kala duwan. haddaba Xasan Mataan Cismaan waa mid kamid ah odayaasha deegaanka waxaana uu ka warbixiyay taariikhda deegaanka. taariikhdiisu waa ay weyn tahay mid weyn weeye. anigu waxaan garanayaa intaan iyadoo aan dhalan guga duumaa la yiraahdo oo duumada lahaa beeru lahaa wilyar baa beera inta ka sinaa weligu shafacsan jiray la cuni jiray badarka laga goyn jiray waagi hadeed waxa kale yamana masage iyo digir iyo qare yaa la abuuri jiray beeruhuna ilaahay risq buu ka soo deyn jiray oo sida haatan adduunka yahay ma ahayn ilaa waagaas iyo maanta inta u dhalaha waa beeru ah beerahaas wax dhan baa lagu shafeecayay ama la joogay beeraha tan maanta aan inaad aragtaan hadda togii waa waxaysan yahay beeruhu laba mas'ale yihiin taariikhda mar waad maqasheen oo bilo rafle ayaa la wareegay bilo rafle waa tu la wareegay ilaa meel la yiraahdo labibus iyo meesha cadaada inta u dhaxle beer buu ka dhigay dadkana waa kala wareegay bilo rafle markuu raashinkii iyo wixii dhow yihiin wuxuu keenay siigaystay in la oran jiray goobta ciidankii iyo wixii isu keenay raashinka ka baxayana uu tusay wuxuu yiri adigu siigaystay waa garanayaa nasiib baad leedahay buu waxa maanta ama dhalinyarada meesha joogta oo wax la baray ama beerta waxa ka muuqda nasiib baad leedahay anigana waa liiga bedelay buu laakiin waxaan ka bariyaa dhalinyaradana qabow oo qabo ciidamada ku dar beertaasna hasii deyn buu waa la ogaaday goortii raashinkii laga goostay siigaystay waatuu
raashinkii markii laga goosootuu ciidankiisii kala baayey lagana tegey waxaa soo dabadeed waxaa yimid iskaashi baa yimid oo dad iskaashi ah oo beeraha tabcada yaa joogi jiray dadkaasaa ku shafeeci jiray adeertaana ku shafeeca beeruhuna labay hadda kale yihiin beer waxay leedahay matoor oo matoorkaas yaa wax waraabinaya matoorkaasaa ee ka shaqaynaya dhirtii waxbaa u baxaysa raashinka waxbaa u baxaya qudaarta waxbaa u baxaya ilaahayna doog waa siiyey beerana waxaa weeye dad aan itaal yaro aan lahayn tabar lahayn beeraha oodana waa ka badatay oo cawsna waa ka baxay laakiin tabartii ay waxaynu hayeen ilaa yihiin laakiin waa dhex joogaano oo waxbay ka falanayaan dhalinyaro dhibaatooyin waddanka iyo dalka u dhashay dadkana ee ka dhashay annagu hotor ilaahay barwaaquna siiyey oo haddee madar iyo doog baa noo da'ay dadku cagaarkaasu baa cuni karaa kii aan dunya haysan miraha iyo go'sada iyo baa cuni karaa taa waxaan leenahay inaad ka qabataan dalka iyo beeraha iyo dadka deegaanka jooga labadaba waan doonaynaa waxaa weeye deegaanka jirkaan suu sheegay ama motoorka ha ahaato ama iskoolka waa la dhigaa dad anigaa saaka nimankaan weydiiyey 100 qof baa meesha dhigatay yidhaahdeen oo dhallinyara iyo carruura gabdhiya raga 1 2 3 beerahana taariikhdoodu way iska fog tahay intaa hadda odagu ka sheekeeyay sanaawaad badan bay jireen ninka intaas leek isagoo yar iyo aniga iyo baanu meesha yaanu joogi jiray beeruhu waa jiri jireen marxalado badanna waa soo mareen garaash program bay soo mareen iyagoo dadku kala leeyahay qolo walba wax samaysata bay soo mareen wakaalada daaqa qaranka waa soo dhex gashado marba hadii ilaahay ku reey iyaduna dad badan u samaysado shaqaale ah qofkii dalxiisiyo tamasheedonayo halkeenaan la heli karin dunida meelu dhigantee soo daawo waxaan dhalinyarada dalxiisaysa waxaan joognaa roox oo u jeedaan dhulkayga quruxdiisa dhalinyarada tahriibaysa dhalinyarada yurub ku faanaysa dhalinyarada salaha dherer ku faanaysa annagoo ciidaa guduudan biyahaas waddankaas quruxda badan baa haysanaan ku faanaynaa idinkana waxaan rajaynayaa inaad ka soo kacdaan oo dhulkiina timaadaan oo dhulkiina maalgashataan oo dhulkiina aamintaan dhaliyahay raagiyo dumar adon diifa weli arag dhaliyahay raagiyo dumar adon diifa weli arag ii halka noloshiyo duufaano kugu kicin odogu garabkaaga joogo odogu dubrada xareediina jiifto dhinacaaga duni lagama raaxo tarib lagama doortee roox baa joognaa oo barwaaqo ka dhacday beeraheedii baa hadda u soconaa alxamdulilah rabbil caalamiin waddanku waa nabad waa barwaaqo wax maal gashta u baahan yahay hees baan ku sheegay waxa dhageysanayay waa wadani الله يا ساكت قرع سوتي قرمال باي دارب يا ساكت الروح لا لنا waxaan joognaa roox baa maanta u dalxiis tagnay ma sha Allah hadda waxaan ku soconaa beero weyn oo liin dhanaan iyo cambe iyo babay leh annagoo oo badan oo tiyoon badan leh waxaan u mahadcelinahay hadda beerihii baan ku soconaa mar dhawaan tageena tog badan oo marka runtii waxa soo maray laga tilaabsanayo labiskii iyo kabihi buudka aan qabnay iyo maanta waxa ka dhacday cagihii dhiiqa ma u baahan qaar kood markii roobku doo ceel gacmeedyo waa qodan waayeen dadkii lafdhabarta roox bay ahaayeen حتى waxaan oran karnaa Puntland dhamaanteed meelaha lagu faano oo hadii Ilaahay ku roonyahay laga hadlo oo idaacooyinka la geliyo oo hay'aduhu soo daawadaan iyay roox ahay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxba duni laga maraaxo tarib laga ma doorteen dalkamiya laga tuurkala dadkamiya laga doorbida lagu doorsada midab diirnaxay
lagu doorsadaa mid dubkaaga neceb dalka miyaa barnaamijka waxay idinla socodsiinaysaa anigoona jamaacadan maxamada dhanka kaamirada waa siciid nadaara soo saarista barnaamijkana waa saalax cabdi daahir saalax carab dhammaantayadaba waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo intaan barnaamijkan xigaa ku kulmi doono dulkeeniyo heba dabactane dheer sabab soo durduro dadiyo xayaabale degmadaad maaraysaba daremiyo dhirguudka